wanaagsan halkan waa Raja Sport meel walba ay joogtaan daawadayaasheena ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka ciyaaraha maalin walba ka daawataan Raja Sport. Warbixin xiiso badan ayaan maanta ku soo qaadan doonaa barnaamijkan qayb ka noqon doonaan dhammaan kulamadii la ciyaaray shalay horyaalada kala duwan horyaalka Premier League United ka oo farci dil ku fakatay Chelsea waxyaabihii ku dhacay kooxdaasi kulamada maanta lagu madalsan yahay in la ciyaaro kadib qaladaad uu sameeyay ciyaaryahan Thiago Silva kulankiisii ugu horeeyay ka soo muuqda Premier League waa ku daafacyada qalaadkii ugu badnaa ka sameeyay horyaalkan hogaamiyaha kooxda kubadda cagta Real Sociedad oo aad u dhaleeceeyay garsoorkii xalay ka wajaheen kulankii Real Madrid qalaad badan oo sheegay guuldaro inay kaga soo gaartay kooxda Real Madrid kulamada maanta la ciyaari doono Pep Guardiola oo imtixaan adag mari doona Barcelona oo ciyaar adag iyaduna ciyaari doonto kadib markii xidiga muhiim ah kooxda isaga dhaqaaqeen Internazionale oo gool muhiim ah ka gaartay horyaalka dalka Talyaaniga iyada dhankeeda ciyaar dhibaato badan goolal badan la iska dhaliyay kulamadaas iyo kulamo kale qayb ka yihiin Juventus iyo Roma sheekada kale heysata caawa xidigaha muhiimka kooxahaasi u safan doona iyo wararkii ugu dambeeyay kulankaasi laga diiwaan geliyay kooxda Schalke 04 oo raacdaysa macalinkeedii kadib guuldarooyin xiga kooxda soo gaartay ay ugu weynayd guuldaradii kala kulmeen kooxda Bayern Munich qodobada ay kuba kale ku daawan doontaan suuqa leebsiga ciyaartooyda ayaa qayb ka markale dhacdooyinka ciyaaraha barnaamijkan ayaan soo gudagali doonaa sheekooyinka waxaan ka bilaabi doonaa kulamadii shalay la ciyaaray kulankii ugu horeeyay shalay soo galay ayaa ahaa kii United ka wajahday kooxda Brighton kulan ka tirsan Premier League kulanka ay United guul waqti dambe ka gaartay ciyaar ku dhamaatay 3 gool iyo 2 gool 90kii penalty amrigoor loo dhigay United ay guul ku heleen taa waqti hore la isdhiigi karayba sheeko barbara ay ku dhamaan kartay laakiin Bruno rigoor loo dhigay ayaa ugu dambeyn United 3-2 kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta Brighton kadib kulankaasi waxa marka hadlay markii la eego ciyaarta kadib hogaamiyaha kooxda United kan lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer isagoo ka hadlay natiijadii kulankaasi isagoo ciyaartooyda qaarna dhaleeceen soo jeeday hogaamiyaha Manchester Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku kaftamay inay u fiicneed kooxdiisa inaanu Chelsea joogin Amex Stadium kadib markii kooxdiisa guul ka gaartay Brighton 3 dhibcood ay ka heleen Solskjaer warbaahinta la hadlay kadib ciyaarta dhamaatay ayaa wuxuu sheegay in kooxdiisu ay u qalmeysay inay ugu yaraan hal dhibic kala baxday garoonka ee barbara ku dhamaatay ciyaartu laakiin waxaanu gaabsaday inuu Saad u sheegay Red Devils ay guush u qalantay tobaraha Norwegianka wuxuu isagoo ku jiray wareysigiisa xasuustay in kulamada Europe League toddobaadkii hore Jose Mourinho dalbaday in la bedelo biraha goolka oo la ogaado inay ka yirihiin cabirka goolasha caadiga ah hogaamiyaha ayaana qaabka kula kaftamay saxaafadda dhan kale wuxuu sheegay in markii la eego macalinkan inay u qalmeen United shalay barbara inay ku dhameystaan laakiin guul kooxdu ay hesho ugu dambeena in aalada faa xilligii garsoorku uu yeeriyay Giseliga dhamaadkii go'aamiyay United xaq u leedahay in rigoorada hesho guushan ay ku qaadatay markii la garoonka inta aan laga bixin xilli taageerayaal badan ay aad uga qaaliyeen sheekadaasi dhanka kale Manchester haddii aan ka gudubno Chelsea aan aadi doonaa Frank Lampard iyo kooxdiisa dhankeeda la yaab ayaa iyaguna shalay lagu dhigay West Bromwich Albion kooxda heerka labaad ka soo dalaacday ciyaar ay wajaheen ayaa ka dhacday markii la eego Blue in qaybtii koowaad 3 gool shabaqeeda la dhigo taa ka dhigneed in aad loo dhaleecay qaab daafaceedka kooxda Blueska ugu dambeyn Blue ayaa 3 gool iska keentay qaybtii labaad ciyaarta taa oo ay ka badbaaday fadeexad kooxda inay ku dhacdo kulankeedii Premier League ee natiijo xanuun badan ee inta aysan la kulmin Blueska ama Chelsea haddaan eegno in gool looga hormaray qaybtii koowaad ayaa keentay in Anfield ku dhaco Frank Lampard dhamaadka ciyaarta Chelsea ay u dabaaldegtay dhibcihii kaliya ciyaartan ka heleen wuxuuna gool daqiiqadii saddexaad Abraham dhaliyay Chelsea saddexdii ciyaarood ay dhashay waxay ka haysataa 4 dhibcood waxaana lumisay 5 dhibcood oo ahaa labadii barbara ee ku waayeen iyo saddexdii Liverpool ka qaadatay usbuucii aan ka soo gudubnay taa oo ka dhigneed Blueska in wali ay dib u laabanayso xilli goolaha Caballero ahaa mid isagana goolal badan kooxdu ka celin waayay kulamadii la ciyaaray ayaan ku sii guda jirnay iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa Real Madrid dhankeeda iyaduna guul ayay gaartay xilli aalada VAR iyo hogaamiyaha kooxda Real Betis ayaan kuwa aad u andacooday waliba uu ku andacooday kooxda in VAR u helayso shalay ama xalay kulankii ciyaartay nadiga Real Madrid Real guul muhiim ay gaartay Los Blancos oo koobka difaacanaysa ciyaartii hor barbara gool la'aan ku soo kala baxeen Sociedad laakiin Valverde Ramos min hal gool u dhaliyay mid saddexaadna iska dhaliyay daafac Betis ayaa guul ku heshay kooxda Real Madrid
Real ayaa yeelatay 4 dhibcood ay ku aroosatay labada ciyaarood ee la soo dhaafay ee kooxdu ciyaartay. Zidane ayaa ku soo galay shax markii la eego isbedel badan ku sameeyay wuxuuna keenay Casemiro, Valverde, Jovic isagoo keed ka dhigay Modric, Vinicius iyo Rodrigo. Laakiin macalinka bas Manuel Pellegrini ayaa ogsoon in saddexda ciyaarood ugu dambeysay Real Madrid ay wacdaro ciyaareen aan laga badin waxayna u jeesteen markii la eego ama u jeenay Robles Sanabria oo keed ka dhigay Claudio Bravo. Mendy ayaa sameeyay fursad kala daqiiqadii kadib goolka laga diiday kooxda. Real Madrid ayaa loo dhigay gool laga fiiriyay dhowr daqiiqo kadib markii la eego falkii dhacay waxaana u muuqatay ama muuqaalku muujiyay in kubaddu uu xirada ganaaxa galay. Goolkaasna Ramos ayaa u ansixiyay kooxda cadcadka. Karim Benzema ayaa libraqsiyadii ugu dambeeyay wuxuu helay fursad qaali ah laakiin kooxdu ma aysan ka faa'iideysan guushaasi goolkaasi inay dhalisay ugu dambeynna gool muhiim ah ayay gaartay. Horyaalka Spain ayaa ku guda jirnay Barcelona iyo Villarreal caawa ay ciyaari doonaan kulan kale oo aad u xiiso badan Lionel Messi iyo kooxdiisana waxay wajihi doonaan kooxda jaalayaasha ee Villarreal. warbixinta kulankaas ayaan eegi doonaa iyo warbixinada ugu xiisaha badnaa ee kulanka iyo xidigaha muhiimka kooxda u diyaarsan. Markaan eegno Blaugrana ama Barcelona wajiyo cusub ayaa ka soo muuqan doona kulankii ugu horeeyay xilli ciyaareedkan La Liga ciyaareen waxay la ciyaarayaan Villarreal oo ku soo booqanaysa New Camp halka jamaahirtu ka bilaabi doonaan qiimeynta tababarahooda cusub in naadiga ee markii la eego oo dhinac kale u rogan. Tababar Ronald Koeman ayaa shaqada la wareegay xagaagan wuxuu caabo kulankiisii ugu horeeyay horyaalka hogaaminaya Barcelona laakiin ciyaartan ay ugu sii beegantay xilli xun oo ay taagan tahay hadalhaynta qaabkii aan fiicnayn kooxda kaga tag Luis Alberto Suarez iyo farintii gilgishay saaxiibkii Lionel Messi. Argentina wiilka ka soo jeeday Messi ayaa kulanka ugu horeeyay tartan caadi ah ka soo muuqanaya tan markii uu shaaciyay inuu iska dhaqaaqi doono kooxda. Barcelona ayaa xagaagan ooda ka qaaday daris markii la eego ama darsin ciyaartoy ahaa waxaa ka tagay Artur Melo, Semedo, Rakitic, Suarez, Arturo Vidal waxaa yimid booska soo galay Marin Panic, Triquillo, Marcos Fernandes iyo Pedri laakiin waxaan haysan weeryahan toos oo buuxiyay booska Suarez ka oo dhibaato kooxda ku ah. Ciyaarta caawa ee markii la eego baadilka ugu weyn ayaa la eegi doona tababar Koeman ugu diyaariyay xidigaha ceebtaas isaga meeri doonaan. Kooxda lagu naanayay Yellow Submarine ayaa horyaalka markii la eego ku furatay barbaro gool la gashay kooxda Huesca waxay kaga soo kabatay guul toddobaadkii hore ka gaareen kooxda Eibar. Tababar Unai Emery ayaa khibradiisa iyo aragnimadiisa tababar dib ugu laabanay Villarreal waxaana xagaagii la soo dhaafay Francis Coquelin iyo Daniel Prajo la soo saxiixday. Golayaha German Marc-Andre ter Stegen ayaa garoomada kaga maqnaan doona dhaawac jilibka tan dhamaadkii October waxaana taa fursad siinaysa Neto. Umtiti Martin Bresen ayaa sidoo kale dhaawacyo ku maqan. Coutinho Vati ayaa u badan tahay inay ka soo laabtaan ama ka soo muuqdaan shaxda halka Antoine Griezmann iyo Messi ay wehelin doonaan De Jong Busquets ay noqon doonaan kuwa la taaban. Pjanic ay u badan tahay inuu keed ku soo bilaado sidoo kale Ousmane Dembele ay u badan tahay inuu sii joogo kooxdu kao markii la ku fara adeegaya in dalabyo badan ka helay kooxo kala duwan oo ciyaar horyaalada kala duwan. Barcelona iyo Villarrealna caawa kulankaasi xiisaha badan ayaa dhexmari doono waan sheeko aad loo sugi doono Messi iyo saaxiibadiisa waxay ka sameyn doonaan markii la eego horyaalkaasi. Premier League ku laaban doona Citizenska iyo Pep Guardiola iyaguna waxay sameyn doonaan ama imtixaankoodii adag ay mari doonaan mar kale kulan ka tirsan Premier League. Manchester City waxay wajihi doonaa markii la eego kooxda dabacooyinka ama Leicester City kulan aad u xiiso badan. Dabacooyinka waxay qayb ka yihiin kooxaha dhibka badan ee aad uga adkeeya kooxaha waaweyn. laakiin Pep Guardiola iyo wiilashiis waxay eegi doonaan mar kale inay guul helaan kadib kulankoodii ugu horeeyay ama ugu dambeeyay ciyaareen. Labada kooxood waxay kulamadoodii hore soo gaareen guulo waaweyn waxayna u dagaalamayaan midkood kulanka saddexaad in dhibco helaan. Pep Guardiola ayaa u dagaalamaya si horyaalka uga qaadi lahaa Liverpool ka oo sanadii hore dhibaato kala kulmay. Leicester iyaguna hogaaminaya tababare Pep Rodriguez wuxuu halgamayaa inuu celiyo ciyaaryahan markii la eego in kooxdu wax badan ay sameeyso. Guardiola ayaa ku calaacalay in kaliya heersa 13 ciyaartoy kooxda koowaad oo tam ah ciyaartii Panama's Evil Cup wuxuu ciyaarsiiyay Liam Talab oo ah daa'ir afka hore 17 sano jira. Sergio Aguero oo muddo isbuuciyaha sii maqnaan doona dhaawac awgii ayaa isagana wuxuu markii la eego ugu darsamay Gabriel Jesus isagana 3 toddobaad maqnaanay. Waxaa laga saaray liiska xulka qaranka Brazil. Phil Foden ayaa la filayay inuu ku soo bilaaban doono ciyaartan sidoo kale Sterling, De Bruyne, Mahrez ayaa markii la eego wadaagi doona afka hore kooxda. Guardiola waxaan ciyaartan aan haysan adeega ciyaaraha Bernardo Silva, Joao Cancelo, Zinchenko, Nicolas Otamendi halka shaki ku jira Aymeric Laporte laakiin waxa karantiil ku jira leeyahay ciyaarahankii corona ku dhacay ee lagu magacaabo Riyad Mahrez. Kooxda martida Leicester waxay igan dhaawac ka laacibka qadka Oliver Ndidi oo mutas bilood ah ama bilo la jiifa dhaawac qalin lagu sameeyay. Saxiixa cusub ee Guns Under ayaa diyaar u ah kulankan halka la filayo Dominic Gray iyo Philip inay kooxda ku soo laabtaan. Vardy ayaa hogaamin doona safka Citizenska waxaana la halgami doona
goolaliyaha City markii la eego ay leeyahay kooxdaas la dagaalami doonta kulankaasna wuxuu noqon doonaa mid kale aad u xiiso badan iyaduna caawa ayaa la sugi doonaa galabta in la daawado Manchester City iyo kooxda Leicester City suuqa iibsiga ciyaartooyda ayaan aadi doonaa iyadoo suuqu uu yahay shakada ugu dambeysa warbixino badan la diiwaan geliyay kooxo fara badan ayaa daneynaya suuqa waxa qayb ka kooxda kubadda cagta Schalke oo raacadeysay macalinkeedii markii la eego kooxdan macalinkeedii ayaa raacdeysay kooxda kubadda cagta Schalke kadib guuldarooyin xanuun badan kooxda soo gaartay taa la dhigi karo macalinka imaan doona ayaa la filin doonaa ama la arki doona kooxda macalinka soo magacaado suuqa iibsiga ciyaartooyda waxa qayb ka ah aad u xiiso badan Lyon ayaa dalbanaysa 46 milyan oo ginimiiska soo saarta Arsenal oo doonaysa Hassam Aour Arsenal waxay diyaar u tahay inay kordhiso lacagtii ku doonaysa xidigaasi Chelsea dalab rasmi ay ka gudbinaysaa qadka dhexe kooxda West Ham Declan Rice Burnley ayaa ku raajoogtay qadka dhexe Celtic Ryan Keres in lagu magacaabo Torino ayaa markii la eego isaga tala baxday Luka Torreira oo danayeen inay kala soo wareegaan Arsenal waxaana wali xiiseynaya xidig Uruguay kooxda reer Spain Atletico de Madrid United ayaa wali ku raajoogtay daafac Brazil Alex Telles waxaa rumaysan yahay inuu ku kalsoon yahay 26 jirkan soo qaadan karto Inter Milan ayaa diyaar ah inay Chelsea u bandhigto daafac reer Slovakia Milan Skriniar ka oo lacag fara badan lagu doonay 27 sano jirka 20 jirka weerarka u ciyaaray Brian Browser ayaa doonay inuu la hadlo Crystal Palace oo 20 milyan ku doonaysa City waxay diyaarinaysaa inay shir cusub ka seexato Phil Foden ka 20 jirkan 30 kun ku qaadan kara isbuucii Liverpool wada hadal ay kula jirtaa Sam Campbell in lagu magacaabo kadib markii kooxda Leeds United iyo Brighton ay wada hadal la bilaabeen 16 jirka qadka dhexe kooxda Rennes Eduardo ninka lagu magacaabo oo qaranka France ka soo jeeda ayaa isaguna daneynaya kooxo kala duwan inay soo qaataan Real waxay doonaysaa inay sanad kale amaah ku dirto Jovic ka nadigiisa hore inta Frankfurt ay cadeysay in aan 22 jir Reserve ama ay ku soo qaadan doonin ama xilligan aysan daneynin sheekadan ay ugu dambeeyay qaleebsiga ciyaartooyda warbixinada ayaa ugu xisaab badnaa qodobkan ayaan ugu dambeeyay barnaamijkan dhacdooyinka ciyaaraha anigoo heer ayaa soo jeedinay Cabdalla Kamil ka qaabanayay sida ay nabadgelyo